mustaqral shaah oo qalj arsalaankii hore ee macruufka ahaa ayaa dhalay. boqorkaasi baa maqlay armeniya boqoradeedii inay guurdoontay. dabeetana uu fariin buu u diray uu leeyahay waxaan rabaa inankayga inaad guursato. boqoraddani christianitygeeda mutacasib bay ku ahayd. waxay tidhi baahi uma qabno inaan muslima inaan guursanno baahi uma qabno. wuxuu yidhi haddiiba aad aqbalaysa inaad guursato wuu kuu kiristaamoobaya. haddaba boqor muslima inanku ha kiristaamoobo buu leeyahy laakiin george iyo boqoraddeeda ha guursato boqorad ha noqdo. waa ogollay bay tidhi haddaad taa aqbalaysaan. waxaa la soo diray ina boqor oo raba inuu diinta kiristankaa qaato si uu boqoradda u guursado. george yuu yimi, diinta kiristankuu galay, boqoraddii baa loo guuriyey, halkaasuu ku guursaday. qiyaas caalamulislaami raggii ka telinaya markaa siday u fakerayaan. boqorad yar oo haysata georgiya iyo mamlakaddaa yar haysata in ay guurdoon tahay buu inankiisa kiristan uga dhigayaa. boqoraddani waddan bay haysataa, inan yaroo muslimoo kiristaamoobay dee tiisiiba ka baxaynaan waxba ku tirinayn waa iska garanaysaa. isagoo joogay umay dheg taagin, waa iska tumataa. naa waxaan jooji buu yidho sheekabaraleyda la bax bay ku tidhi. mid addoonkiisa iyo addoomihii meesha ka shaqaynayay mid ka mid a ayaabuu ugu yimi oo sariirtiisii saaran. dabeetana uu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan haddaad dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog ama waad arki doontaa waxa kugu dhaca. waabuu iska yara cadhaysiiyey. waxay tidhi ha la qabto ha la masaafuriyo meel gaarah lagu xidho. waa la kaxeeyey meel gaaraa lagu xidhay. nin kalena way iska guursatay, isna halkaasuu ku xidhnaa. waa boqorkii inankiisii reer anadoole loo diray inuu gabadha kiristankaa guursado. yacni xaadiadani maxay tilmaamaysaa? waxay tilmaamaysaa siday maadiyiin u noqdeen dadkan muslimiinta ah iyo caqaa'idday rumaysayin inta ay tamar leeg tahay. dadkaasaynu rabnaa inay markaa caalamulislaami marka kan wax ka dhiciyaan. waa iska soo koobaya, wakhtigu waa dhammaad baan filaya, inkastoo aanan muuse waraaqdiisii wali haynin. 621 markay taariikhdu maraysay waxaa dib u bilaabmay khiyaatuddiin ninkii la odhan jiray aynu ka soo warrannay ee dowladda yare cusub aasaasay. mandaqada faris la yidhaahda inteeda badan buu qabsaday. waxaa ku soo baxay nin kale oo sacduddiin ibnu dakla la yidhaahdo. dabeetana dhexdoodii bay iska dileen. dad badan baa ku kala dhintay. akhiiran waxay noqotay khiyaatuddiin inuu meeshii u soo xoog badan karo, sacduddiinna la yaro riixi karo. warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina 3,000 oo askaray faris u soo direen. madiinatu rayi bay soo baabi'iyeen, saawa bay soo baabi'iyeen, qumtan aaraantu ay degan yihiin bay baabi'iyeen, qaashaan magaalo la yidhaahday baabi'iyeen, hamadaan bay soo baabi'iyeen, farsamadoodii bay dib soo celiyeen. waa 3,000 oo nin. jankiskhaan bay u tageen iyagoo nabad qaba, waayo labadii ciidan ee yarraa ee meesha joogay iyagaa isdilaya. khiyaatuddiin iyo sacduddiin iyagaa isdilaya. daa'ifo yaroo 3 kunina magaalooyinkay tirtiraysaa oo ay sii wadda. 622 taariikhdu markay maraysay ayaa dib waxa u soo hambaabiray jalaaluddiinkii waadiga sindi ka tallaabay ee indiya u tallaabay. indiya dowlo khawriyiin la yidhaahdo muslimiina baa degan. iskumanay fiicnayn jalaaluddiinkan, laakiin inuu xaggaa iska waajaha buu tataarka ka door biday. kadib buu dib uga soo tallaabay webiga sind. aan halkaa ku joojino maraddu axmed soo fadhiistay. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.